isdoorta ehel ku taama aroskooda aqal la seesa dhiga aslan iyo tabadlo sheega maalin qofna maalin qof waxay u tahay murug maalin waxay u tahay qof farxad sababta taa nolosha waxay ku dhisantahay maalin bas inay tahay qofna maalin ay u wacnaato qofna maalin ay u murugnaasanaato maanta noloshu waxay u wacnaataa ama u wacan tahay sida ujeedo ama youtuberada caanka ah iska garanaysiin isla mala jeclay marka waa arrin aad loogu farxo arrin aad loogu farxo oo mudan in lagu daydo ama mudan in qof walba oo dhalinyaro ah oo sanadkan soo baxaya ama dhalinyarada sanadkan soo baxaysa in ay ku dayato mudan marka waa dareemi kartaa ama sida klibida ku aragto ama sida muuqaalka aad ku aragto in ay is arooseen ama ay ismehersadeen isla mala jeclay iyo sida klibkan ku aragto gabadhan waxa lagu xama jiray ama dadka ay dhihi jireen waxay xiriir jecel leedahay youtuberka kale ee leeyin Kamaal marka waxaan intaas ku cadeynayso in arrintaas arrin been ah ahayd oo aan wax xiriir ka dhaxaynin ama xiriirka hadda uu ka dhaxeeyay oo meesha inuu ku burburay san u maleena ama sida loo jeedo sababtay tahay waxay gashay aroos kale ama aroos cusub marka waxay ku duubeen iyada iyo wiilka ismehersadeen wadanka Soomaaliya marka waxay jilayaan ama sida ay noo soo gudbinayaan inay yihiin laba qofood oo aad iyo aad isku faraxsan sida muuqaalka aad ka dareemi karto ama muuqaalka klibka loo duubay ama cameramanka qaabka iyo labadooba sida u jilayaan ama labadooba jilinka istimeynayaan ama sida ay isku faraxsan yihiin sida u jilayaan ama qaabka jilinkooda ay tahay waxaa ka dareemaysaa in ay yihiin dad oo xitaa klibkan waxaa la duubay san jecelahay intii aynan markooda dhicin ama isku aqal gelin ay klibkan la duubay marka wallaahi waa arrin lagu farxo 100% sanadkan waxaan ugu soo badbatay dadkii isku shaqada ahay ama halka wada shaqo ku wada jiray in ay isku soo dhawaasanayaan ay aad isku soo dhawaanayaan ama aroosyadooda ama meheradooda meherkooda oo dhacay daqiiqad waxa arkaysaa dad isku shaqo ah oo evelba waxa aad jirtay dadka qofka ugu dhow ama qofka ay waqti xaadirkan ay wada joogaan in ay babis kaliya wada shaqeyntaas ay ka wada dhaxayso laakiin sanadahan dambe waxaan dareemaynaa ama Soomaalida idil ku soo badanayso qof walba qofka ugu dhow yahay ama qofka oo isku wada shaqada yihiin in ay meherkooda wax walba dhaco marka taasna waxa keena ma garanayno marka arrintaasna waa arrin aad u farxad badan oo arrin in la isku soo dhawaado ama dadka isku shaqada tiin ama dadka isku shaqada aan ahayn in isku soo dhawaatiin 100% waa arrin aad u fiican waa arrin noloshaada wax badan ka bedelayso ama nolosha ku jirto waqti xaadirkaas wax badan ka bedelayso 100% sida klibkan ku aragto waxa cadeynaya in ay ahaayeen dad saaxiibo ah ama dad aad iyo aad isku dhow oo my friends ah oo aan wax kale ka dhaxaynin ama waxyaabo kale dadka waxyaabaha ay buubuuninayaan ayna waxba ka jirin